waagaag daawadayaal warka waxaanu ku bilaabaynaa wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay shaacisay in la dadejinayo dhismaha guddiga qaran ee adeega garsoorka ee dalkeena Soomaaliya hadalkan ayaa waxaa shaaciyay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji wuxuuna sheegay inay socdaan qorshayaal lagu soo dhameystirayo waxyaabihii looga baahnaa sida ay ku imanayaan xubnaha guddiga adeega garsoorka wasiirku mar arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri arrin muhiim ah aan ku mashquulsaneen oo ahayd dhisidda golaha adeega garsoorka taas oo muddo badan aan ku hoolaneen wada tashigeedana socday baarlamaankana soo dhaweeyay in dhaqso loo sameeyo gudoomiyaha aad baan ugu mahadcelinay inuu ma aragtay arintaas uu tixgelinayo oo rabo in guddiga la dhiso baarlamaankana waan ku kalsoonahay hadda waxaan ku jirnaa siyaasad ahaan in dadkii xubin ka noqon lahaa aan hadda ka wada tashano aan insha Allah waxaan rajaynaynaa in markaan hadda diyaarino in golaha wasiirada aan geeyno si loo helo garsoor oo dhameystiran hadda waxa ka maqan golihii adeeg garsoorka waxa kale barbar socda maamul goboleedyada naftooda waxa naga soo gaarahay cabasho fara badan in meelo ka mid ah oo maamul goboleedyada qaarkooda hadda tayada garsoorka uu aad u liito ayaga naftooda waxay u baahan yihiin in maxkamadii loo dhiso in loo dhiso xabsiyadii loo dhiso in lagu kaalmayo sidii loo samayn lahaa guddiga adeega garsoorka ay leeyihiin haddii ay rabaan guddiga adeega garsoorka oo federaalka naftiisa haddii ay la shaqayn karaan iyo modelkii nidaamkii lagu wada shaqayn lahaa madda saddexaad oo aan ku guulaystay waxaa waay in xafis weyn oo cabashooyinka dadweynaha aan furnay xafiskaas oo dad badan hadda imaadeen oo hadda cabashooyinkii fara badan imaaday qaar ka mid ah weli meesha lagu xaliyay kuwa kalena aan rabno si loo xaliyo madda afaraado ugu muhiimsan oo hadda hirgashay waa la socota shuruuc badan in hadda la geynayo baarlamaanka wasaaradda cadaaladda waxa ay ku guulaysatay inay dhisto wax oo sharciyada qorto diyaariso wasaaradaha kalena ay markay sharciga soo gudbiyaan dib u eegis ku samayso waxaan ku guulaysanay 18 sharci wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka in ay bilaabayso xog ururin ku saabsan xuquuqda ay helaan caruurta gobolka Banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Deeq Suleymaan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa arintaasi shaaciyay wuxuuna sheegay in warbixintan xog ururinta la sameeyo ay hordhac u tahay qorshaha Soomaaliya uga warbixinayso heshiiska caalamiga ee ilaalinta xuquuqda caruurta kaas oo Soomaaliya ay saxiixday sanadkii 2015